السلام عليكم دمانتين سو dhawaada walaalahay meel kastoo dunida dacaladeeda ka joogtaan waa walaalkiisa maanta maanta casharkeeni baashatuugiisa ayaan jeclaystay inaan soo geliyo waayo waxaan dareemayaa xamaasad baan ka dareemayaa iyo rabitaan aad rabtaan inaad wax barataan maasha allah qof kasta oo xamaasad iyo rabitaan u hayo waxbarashadan dee garab ilaahay baaba siiyaba hadaad dadaasho ilaahay wuu garab kudmaya laakiin haddaad tahay mid iska soo jiifa halka iska soo taag yaa oo dee ilaahay horta duco waa aqbalaa laakiin duco ficil leh buu aqbalaa min fahanteen waxaan ula jeeda ilaahay duco waa aqbalaa laakiin duco ficil leh buu aqbalaa haddaad maalinta dhan ku ducaysiiso ilaahay oo ganacsigan tradingka baan ilaahayow rabaaye inaan ka guud gaaray ilaahayow i caawi oodan xataa hal habeen aad u dhafreen muxuu ilaahay kuga caawinayaa ficilkii iyo waddadii maba haysidba laakiin markaad ilaahay uu kuu jeedo aadna baryayso aadna mataqaana u dhafrayso oo aad rabto rabitaan aad u hayso ilaahay qalbigaaga ku jiro uu ogyahay wuxuu leeyahay addoonkayga yaa ilaahayna dulmi iska xarin ma ogtahay cidna ilaahay ma dulmiyo wuxuu leeyahay addoonkayga saa u rafaadaya habeenkii indhihii ka dhici rabaan oo suu fiidiyooyo iyo wax u qoraayo wax u akrinaayo yaa ganacsigan ee ka tahay ka go-an tahay inuu burto ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay waan caawinaya addoonkayga irid walba kuu furaya ilaahay oo adoo youtube iska gala waxaad arkaysaa fiidiyo cilmi ah waxaad arkaysaa ilaahayba waxyaabaha mataqaana halkee ka imaanaya mis weydiisay waxay ka imaanayaan ducada aad ducaysanayso iyo rabitaanka aad weyso ganacsi ismaad fahmi laakiin haddaad tahay iska soo jiife iska soo taagne oo yacni rabin hal maalin xataa inuu wax fahmo wax baro laakiin rabaa inuu ganacsiganba u haysto khamaad wallahi ganacsi khamaad ma cilmiga iskugu soo fiisho adeerna cido yaa lagaga tegine wax baro wax faa'iiso buugaagta akhri mataqaanaaye dhalinyarada telegramka linkiga waa idiin soo share gareynaa inkastoo telegramka arday beginner ay ku jirin oo arday xoogaa basicii ka dhisan oo xoogaa wax fahansan ganacsigan haddana tacliintu socoto ay ka buuxaan laakiin telegramka waa idiin soo share gareynayaa laakiin ardayda beginnerka waxaan u sheegayaa gooda tradeska ha aadaan oo casharada muhiimka ilaa iyo 13 cashar oo mataqaan basica oo baa jira casharada ha kusoo ceshtaan soo bartaan kadib channelka groupkan ha yimaadaan oo casharada ka dhiman youtube-ka ayay ka helayaan wax badan oo ka dhiman marka sidaas ayaan idiin sheegaya walaa hala dadaalo walaa inaan dadaalin yaa haddee haddaad dadaal weydo dee dhib aday unbay ku qabsanaysaa waa iyo khasaaraha marka ganacsiga aan barano hataa hal sana haddii lagu qaadayso ha u diidano ha u rafaadno mataqaan maxaa hadda 2019 hadda waa xasuusataa may aawe 2019 hadda dhaweyd aawe bishii December hadda lagu jiraa tobnaad 9 iska tobanka bisha 20 bir kaliya sanadka cusbaa ka dhigay soo ma jirta waqti soo ordaa waqti waa gabaabsi in laga faa'iideysan badan maanta sanadka bal qoro wax dhaa bisha January كل سنة كواحد رائع أن IQ option مع forex trading section كل وأيام صعب سنة كاس الحمد لله سنة قدام بيلا وضعكم لواتني كل وأيام نقطة profitable trader نيجي نعسين يعني كهر مري ويعني لقالك سوبي يعني وإحنا معلمين كلها جدا رفاض الشغل سمو فهم حقيقة أنا فتاي وقت بيكبرين جهد بيكبرين أيوة بينكي متقانا قاعد شيء سن بصوت نفعين ورفاعين متقانا dadka ay wax akhriyaan marka inta dhiirigelinta dadku ma shaqo waxa noo socda candlestick waxa baranay sidoo qaabku halku ka furmo kan cagaarka iyo kan guduudka halku ka furmo looga iyo hay'adda sida u sameeyaan kale inaad qorateen baa jecel anu meeshan buug la'aan dad u imaanayso adeero macaan buug la'aan hadday wax soconayso aniga maanta cilmigan kuma faa'iideeyay waayo cilmigan sababtan kugu faa'iideynaa dad ku sheego waxa waaye maalintan baranayay buugii qalin baan u qaatay waan sawirayay waan dhegeysanayay waan daawanayay waan qorayay marka intaan intaasoo dhan soo maray maanta idinka igamaydaan faa'iideysateen buuggaygii baan kasoo qoraa casharada si idinka idin anfaco ma jirtaan marka ogaada inay dad idinka dambeeyaan nafsiyan xataa u baahantiin inaad wax qorataan aragtaan daawataan marka buugii qalin waa muhiim haddaad isleeda buugii qalin qaadan maayo anina waxaan kuu sheegaya baranmaysid ganacsi جبا هو أهتم لكن أنا رد كل شيء هو يقدم خصب نود بوجاد ور حتى تريد بلانكا
anigu hadda markaan tirgelina buug qalin baa agtiya shuruudaha aan ku tirgelinaya qortaa haddaan shuruudaha suuqa ka waayo ma tirgereeyo lacagteeda yaa igu leh xoog miyaa lagu leeyahay lacagteedaan ku khamaanaya lacagteeda waan jeclay capital you have to love your capital be smart lacagtaada save garee lacagtaada ku khamaarin khamaar meesha looma iman ya aan ku gudubno maanta waxaan dhiganaynaa waxa loo yaqaano candle psychology psychologyga aad maqasheen oo badanaa dadku iska dhahaan maxaa ka dambeeya candle sentimentiga ayaa maanta baranayna ama psychology sentimentiga other wordkiisa macnihiisa kale waa psychologyga ka dambeeya maskixiyan marka la fiiriyo suuqani wuxuu ku socdo candlada habsamayskiisa maxaa ka dambeeya ayaan baranayna maanta okay aan ka gudubno candle sentiment ama psychology waxa la yidhi waa markii aad analyseynayso ama aad rabto inaad analyse garayso ama taxliiliso candlada ama shamciyada the key question furaha koowaad su-aasha ugu weyn aad rabto inaad isweydiiso waxa waaye suuqan yaa control haya okay suuqan yaa controlkiisa haya who is in control ma bullska ayaa haya oo loo yaqaano buyerska miyaa haya mise bearska oo loo yaqaano bearshka ama sellerska miyaa haya okay مين فانتين يعني واحد نكون احنا شيء انه فانتين اي مهم waxa yacan lu yiri candle sentimentiga ama psychologyga shamaca psychology waxa la yiri when analyzing candles marka aad rabto inaad taxliiliso shamacyada the key question is su'aasha kuwad furaha su'aasha la rabo inaad isweydiiso waxa waaye who is in control yaa suuqan maamulaya yaa awoodda suuqan maanta yaan raacaa ma sellerska raacaa mise buyers okay okay the bulls hadee buyerska ayaan waxa loo yaqaanaa bullska hadee bearska ayaanna bearska marka sidee u ogyihiin marka componentska aan si kala shay hadee buyerska ayaan free bodygooda waxa waaye cagaar in la openkiisa hoose closekiisana kor ah ifaan waxaan ku noqon meena shalaa soo baratay hadee bearska ayaanna guduud waa inaan aragno real bodyga kalarkiisa waa inuu yahay guduud openkiisa waa inuu yahay kor closekiisa waa inuu hoose candle sentimentiga tusaale hadda حاول بأن تصالح سانجعله نوعي فهمتان بمين وقت أوكي سؤال هذا عقب خساري وحروا إن أكثر من كيلبسي ما أكثر من ما يحين قناة تدخل يو سلاش اوكي من خسارة اوه باي انا كان اوكي نوص اسم ان waxaan rabnaa marka tusaale marka aad rabto in aad suuq analyze garayso adi ahaa shakhsiyan waxa fiican su'aal program waa u baahan saaranayna استعرضنا لفن نصر لفن نصر كان كلامك هذا يا هو شيء هذا الوقت اوكي كان كلامه هو هذا الوقت هو هذا أيوة أنا بديت وكان
sugaa ka saarna lacag guduud buu ku xirmaya don't worry guduud buu ku xirmaya guduud buu ku xirmaya konton guduud buu noqonaya ama levelka guduud guduud halkan waa strong level laakiin ya halkan waa level dhibna saleska awoodda buu jarayaa levelka buu jebinayaa I know candle psychology is very important in our enemies is very important okay hadda markaad qiimeysa adi ahaan waxaan fiirinaynaa who is in control ani markaan maskaxdeeda dejiyo shamaarka ahaan controlka waxaan siinayaa saleska cause hadaa waxaan arkay biaskii soo socda sales inay soo galeen okay macna ayaa candle addition marka fiir macna ayaa ku fadhiya candleka waayo waxaan arkaynaa buygi in la soo diiday okay haye haddana biasku isku dayeen halkan oo level up isku dayeen inay soo galaan daciif ay ahaayeen isna saleska ayaa soo galay taa macnaheedu ma marka isla markaas ayaan sale u galayaa because candle awood badan markasta ma aamin kartid because of candle awood badan markasta maxaa ku xiga candle waxa ku xigo oo retracement oo cagaar ah baa ku xigo candle guduud oo awood waxa ku xiga candle retracement oo cagaar marka adiga waxaa sugaysaa mar walba levelka markuu ku soo gaaro inaad trade gareyso level baa ku xisaabtamaysa okay hadda dee candleka waa awood badan yahay wuxuu engulf gareeyey bearishka ayuu engulf gareeyey marka qofku wuxuu isdhihi karaa halkaa markuu tago isna buy usii gal waayo biaska ayaa awoodda kuma xisaabtamaayo 1 2 3 saddexdan ka dambeeya kuma xisaabtamaayo saddexdaa marka la fiiriyo marka isku darto wuxuu noqonayaa candlekan ka awood weyn ayuu noqonayaa saas ayaa loola jeeda psychology-ga marka kuma degdegaysid laakiin markii kan kow kan laba saddexdaa ay isku xigaan kan buy waan u geli karaa waan aamin karaa inaan buy u galo okay laakiin muhiim ma mar walba inaad saa u fikirto level ayaa jalsuudka uu xushmeynaa hadda tusaale kan waa buy awood badan marka kan buy sababta marka aan buy ugu gelin xitaa halkan level waayo because badaaya halkan waxa aragnaa biaski in lagaga soo xoog bato ee sales soo galaa marka anytime isla sida baa dhici karta sales baa soo geli kara marka waa iska ilaalinaysaa sell un baad u gelaysaa mis baa inaad walaaga sidaasaa la rabaa in levelada iska ilaaliso levelba level ku xun yahay levelba level ku fiican yahay in marka psychology aanta maskaxdaada aad saa u dhacdiso okay waxaan waa wax fududna waxay noqdaan markaad aqoonta leedahay laakiin haddaad aqoonta leedahay wax fudud marku misfaham marka saas ayaa loola jeedaa candleka cagaarka markaa aragto waxa awoodda leh pulska ayaa leh buy ayaad u gelaysaa candle guduud haddaad aragto waxa awoodda leh bearska ayaa awood leh waxaad u gelaysaa sell ayaad u gelaysaa vice versa sidaas u noqono casharka okay markaad aragto real bodyga markaad aragto candle cagaar candle kala cagaariya candle saxad cagaariya candle ka afraad cagaariya awood la suuqaasi dee waxaan leenahay suuqaas waa bulls ayaa hogaaminaya buy ayaad u raadinaysaa entry fiican ayaa raadinaysaa weliba annaga IQ option waxaana looga baahan yahay ama adda mana inay lacagta ATM ama inay noo ahaato ama ITM labadaa inay ama inaan draw galno oo lacagteena ATM waxa loo yaqaan lacagta inaad draw gasho draw yani zero inaadan lose garayn inaadan win garayn ama inaad hesho ama in the money
inaad laakiin OTM waa iska ilaalinaya maadaama anaga aad tirigelinna daqiiqado okay waxaan waa digital moogtahay marka intri fiican waa inaad haysato candle markuu soo laabo dhax intri fiican waa inaad haysato okay and waxaa hadda psychology waxaan nidhi candleka awoodda badan markaan aragno meeshuu ku furmayo meeshuu ku xirma aan naqaan waxaa awoodda siinaynaa candlelada inay yihiin bulls haddaan aragno candle guduuda oo ka xirma oo ka furmaayo kor hoosna ka xirmaa real bodigiisna uu guduud yahay waxaan awoodda siinaynaa bears inay awoodda leeyahay real bodiga ayaan gelaynaa marka real bodiga see noqon karaa real bodiga wuxuu noqon karaa qaab dhismeedka jirka waayo soo baranay sooma real bodiga wuxuu noqon karaa cagaar oo weyn iyo cagaar oo yar qasab maaha in oo cagaar weyn markasta ahaadaan meelaha qaar cagaar yar ayuu noqonayaa oo adiga psychology ahaan tusaale ku tusaya in ay suuqu soo galay bulls uu soo galay okay markaan waxyaabaha aragno maxaan dhahaynaa biaskii baa control kale tusaale kan yar markuu suuq kasoo baxayo waa level suuqa aad ku tushanaysay oo inay soo galaan biaska support level ama tusaale hadda halkan wuxuu ii yahay baan dhahayaa tusaale meel level ayaan tusayaa okay halkan waa level halkan okay waa level waa support xoog badan waayo okay levelada waa baratana filaya waayo halkan wuu ka laabtay boom wuu soo laabtay wuu isku dayay wuu ka laabtay bullishin galfan ayuu kaga laabtay wuu isku dayay bisna wuu ka laabtay soo ma jeedaan marka levelka oo sugaya mararka qaar ayaad waxaa arkaysaa rejection markuu lifeka candlekan lifeka uu yahay waxaa dareemaysa diidmo in la diidayo inuu hoos sii aado marka camal waxaa leedahay okay isla wixii adoo arkaya haddaad bay halkaa u gasho yacni ugal kuma dhahayo laakiin waxaa arkaysaa suuqani in biaskii ay soo socdaan ayaad arkaysaa isfaan waxaa kula jeedo yani biaskii in anytime suuqani soo galayaan waayo way isoo muujiyeen hadaayo halkan way ismuujiyeen way soo galeen hadda halkan bisna way isu muujiyeen marka intri fiican ayaad raadsanaysaa adoo waqti ku xisaabtamaya waxaad leedahay candleka markuu levelka i yimaado meelaha camal ayaa intriga ka dhigaa waad xaqiiqsatay biaska inuu soo galo adiga you make story sababta labadan candle awoodda weyn kan yarka ah uu soo baxay meesha maxay tahay su-aal ayaa meesha ku jirta maogta waa isweydiinaysaa yaa controlka markaa leh waxaa controlka bulls marka intri fiican ayaa raadsanaysaa markaad halka intriga boom ma arkaysaa candlekaas waxaa arkaysaa in levelkii laga celcelinayo levelkaas unba adiga maanta dhan ilaashanaysa okay hadduu jabana de resistance ayuu ku noqonaya waa aragtaa ka laabanaya levelka habkaas ayaa la rabaa in loo trade xigmad ayaa ku jirta okay walaalayaal isla levelkii markaa aragto waxaa arkaysaa bisna in aad looga celiyey biaska taas macnaheeda ma isla markii inaad garayo haddii sheekaa la rabaa inaad adeegsato waad sugaysaa waayo waxaa ku xisaabtamayso waa level waxa leedahay levelka markii la iisoo gaaro adhoodi maadaama adaayo uu support level ah waxaan rajeynaya waxay tahay caddeentana waxay tahay adaayo halkan waayo halkaas adiga ku xisaabtamaysa halkaa adaayo markii la gaaray waxaa yimi sellers ayaa soo gala oo suuqa suuci marka halkaa markuu suuqa tago waa kan candleka markuu halkaa tago waxaan u gelayaa sell ayaan u gelaya okay doorta waayo adaayo wuxuu ku ah support kuu jabay hadda muxuu ku noqonayaa resistance aqoontaas kulli marka iscombiring isku geysato candlestickii levelkii awood ayaa suuqan u yeelanaysaa mii fahant macnaha dadka confirmationka rabaa oo yani confirmationka jecelna hal waxay samayn karaan inay arkaan maadaama ay trade gareyn kara shaki uu ku jiro candle guduud markuu soo muujiyo intrigooda halkaa ka dhigan waayo candle guduud sababta uu halkaa iskaga soo muujinayo maxay tahay biaskan awood badan candle guduud sababta usoo baxa waxa waaye candle guduud usoo baxa waa sellerski baa suuqa soo bilaaba waana halkan waa daayana caddeyntan ayaa haysata weyn in rejection soo sameeyay okay marka controlka waxa ayaa leedahay sellerska ayaa control ah marka sell ayaad u gelaysaa mid kastoo controlka hayo sell ayaad u gelaysaa
okay and waan fahnay markii bias control ka waa marka level support level aad ka aragto ka la awood badan oo bias oo soo gala markaas waxaa dhaysaa bias control headkana markaad ka arkayso waa level oo kandalada guduudka ay kasoo galaan ayaa leedahay sellers and control waa su-aalaha la rabo inaad isweydiiso okay soo fahantaa hadda umalaynaya okay kandalada kulligooda sidaas maaha marka ma noqon karaan yacni candle awood badan ma noqon karaan iyo candle yaryar ma noqon marka qaar waxay noqonayaan candle oo leh seemo dhaadheer leh bay noqon karaan marka isweydiino su-aashan marka candladan bullish miyaa mise bearish yaan candladan ugu darnaa kooxday ka mid noqon karaan oo waxaan dhihi karnaa waxaan dhihi karnaa waa bullish miyaa dhihi karnaa mise waa bearish marka su-aal ayaa halkaas ka weydiinayna waxa lagu dhahay what does this candles mean when it is respected the sentiment or the psychology of candle candladan kaaga muuqda halkan maxay la macno yihiin markii la xishmeeyo ama lagu qiimeeyo psychology ahaan candlekan maxay la macno yihiin baa what does this candles mean maxay la macno yihiin macnaha maaha guduud baa aragtay seel u gal maaha xikmad baa halkan ku jirto ama cagaar baa aragtay cagaar baa u gal maaha xikmad ayaa halka ku jirtee maxay tahay xikmadda okay halkanna waa doji candlestick dojiga wuxuu caddeeyaa indecision in suuqa la isku haysto intuusa ayaa habka u shaqeeyo kanna waa fourth candle ayaa loo yaqaan asana wuxuu ku caddeynayaa indecision in suuqa la isku haysto waa isla meesha xoogaa body yar ayuu leeyahay bodyga it can be either color red ama wuxuu noqon karaa green red ama green bodygan hadda idin sheega ama red buu noqon karaa ama green okay macno ma keenis kanna sidoo kale ama green buu noqon karaa ama green buu noqon karaa ama red buu noqon karaa okay macno ma keenis kanna sidoo kale ama green buu noqon karaa ama red okay macno ma keenaa laakiin macnaha inaad dhuuxdo waaye wax ka dambeeyo okay kan markuu level support ka soo baxo jiidmadan dheerna uu leeyahay macnahaas waxa waaye support levelna uu yahay levelki jiidmana waad arag taas waxa waaye waa meesha waa sirba ku jirta kanna asoo resistance level leeyahay sidan kaaga soo baxay sirba ku jirta kanna asoo support level uu yahay ayuu saan ku soo baxay kanna support level ama resistance level ayuu saan ku soo baxay waxyaabo badan ayaa ku jira marka inaan fahanno inaan isku dayno okay gudbina waa kala dhigdhigaynaa kuwan hadda aan soo aragnay waan kala dhigdhigaynaa sellers bar mise waa bias kay groupkeen ku jiraan okay kuwan componentska ay ka kooban yihiin horta waxa waaye lowgii oo aan soo baranay iyo highga iyo meesha ku xidhmo okay kanna waa highgii lowgii iyo meesha yacni meesha ka furmo iyo meesha ku xidhmo marka adii isweydii su-aasha candlekan waxaad u baratay inuu halkan ka furmo low yar uu samaysto uu socdo yacni saan uu sameeyo uu socdo uu halkan ku xidho ayaa u baratay sax laakiin maxay ku dhacday in halkan laga soo celiyey meeshu ku xidhmi lahaa halkaas waaye maxaa loo soo celiyey halkan loo keenay isweydii sababta loo soo celiyey waxa halkan ku jira waxay tahay sellers ayaa halka ku jira waa aragtaan qoraalka sellers ayaa halka ku jira sellers waxa loo yaqaanaa candle kooxdii guduudka ahayd ayaa levelka diidan waxay u diidan yihiinna wax kale maaha way soo rejection ayay soo siiyeen diidmo waayo waxa laga yaabaa level inuu ahaa resistance level inuu meesha ku yaalay kadibna aad diidmada aragto candleka labaad waa inaad u gasho sell haddaad dadka confirmationka jecel aad tahayna waxa waaye casharada dambe ayaan gaarin insha allah dib male sellers ayaa okay kan level waaye kasoo qaad candleka guduudka waxa u baratay inuu halka ka furmo uu soo socdo uu halka ku xidho ayaa u baratay sidaas uu full candle laakiin sababta maxay tahay meesha ku xidhmi lahaa maxaa looga soo qaxiyey oo loo soo diiday oo halkaa loo keenay sababta waxa waaye halkaa waxa ku jira bias ayaa ku jira halkaa waxa soo riixay waxa waaye bias ayaa ku jira marka psychology lagu sheego waa halaas inaad fahanto candleka okay
isfahno walaal bias ayaa halka ku jira okay hada waa isku meel la taaganaa Soomaa marka kan maadaama uu colorka yahay colorku ma qiimeynaa laakiin waxa ku qiimeynaynaa height body waxa ka dheer kana ka dheer low to body kan ayaa ka hooseeya taas inta dheer macna ayay keenaysaa waa diidmo qayaxan oo ay ka dambeeyaan bias inay dhacayaan oo naga noqda levelka anaga halkan ka soo galayno waa dhoolatus adi cadeen lagu tusayo inaad bay u sii gali karto waa fahanto aan ka gudubno okay kan tusaale waa muhiim either color ayuu noqon karaa either color muhiim maaha okay kan hadda waxaan dareemaynaa wuu soo socdo halkan markuu imaaday waa la celiyey celiskaas macnaha ka dambeeya waxa maxaa waa bias ayaa soo galaya waa isla sidii biaska ayagana maxaa lagu sameeyey halkan marka sii socda waa la soo celiyey macnaha ka dambeeya maxaa waaye seelas ayaa soo galaya waa walaal inaa isfahanno halkan sidoo kale waxaan pimper ayaa loo yaqaan markuu isku dayo halka inuu waa la soo celiyey kana sidoo kale markuu isku dayo halka inuu yimaado waa la celiyey bias ayaa soo galay kan sidoo kale diidmo waay awood marka kan ilaa saa aqoon u yeelato waa kan sidoo kale hadaa aqoon u yeelato boqor baa noqonaysaa suuqani awood ku yeesho inuu ka trade karo si walba kan sidoo kale mujida uu isku dayay waa la celiyey taa macnaheedu maxay tahay bias ayaa soo galaayo okay kan ujeeda uu isku dayay awood ayuu isku dayay kadib maxaa la sameeyay waa resistance level jabay muxuu noqonayaa support levelada saas ayuu ku awood badan yihiin support level markuu jabana muxuu noqonayaa resistance level saas la isu bedelayaan dadina waxa arkaya ka caawinaya waxaan markaad aragto ma trade gareynaysa waxani waa kan dhilada yaraa ama daay arkin ma trade gareyn kartid waayo suuqu wuu xun yahay okay walaalayaal binta xisleeda kan muxuu saa u noqon kan meelo loogu talagalaa jirto marka ka soo baxo aad ku trade gareyn karto maaha meel walba markuu candle iiga soo baxo waa tir maaha meelo qaar waay waan baranaynaa u tagin okay ani meelahan ka raadinaya fiiri meelahan ka raadinaya muujidi meelahan ka raadinaya okay kan hadda ujeedin diidmo levelkaas baya ayuu ahaa diidmo maxaa dhacay sababtu halkan bias ayaa awood badnaaya sababtu maxay tahay oo kan rejection kale uu soo galay hoos ayuu saadaalinaya inuu suuqaas usii socdo suuqa markuu saa yahay chopping market ayaa loo yaqaanaa trade gareynin chopping market waa suuq xun yani meelaad u raacdo mala falaaraha dhaadheer ayuu sameeyay suuq okay taami badan ayaan tusaya waxaan inaa barataan kaas okay kana ujeedin diidmo waa levelna waa halka waa levelka adaya waa level xoog weyn price action waxa waaye meelaha uu suuqani adaya ka noqday ayuu mar labaad kana noqonaya ayaa loola jeedaa يعني level lada awoodooda waa sax waxa aragnaa halkan waa level inuu ku laabto dadan wuxuu u sii yeelaa meesha levelka marka aragto diidmo hoos ayuu soo aado soo trade kareen walaalayaal inaad wax fahantaan kaf kulaa nacshto ma ku dhac maro cashka kan waqti okay sentiment or psychology labada waa dhig takii ku sentiment or psychology maskaxiyan adiga psychology ahaanta maskaxda ma ka shaqeyso waxa lagu in order to gain psychology ask yourself
تعرف يعني إن مسكحة awood u yeesho ama aad yani oo xakamayso isweydii adiga su'aalahan who is in control suuqani yaa maamulaya suuqa awoodda yaa haya yaa controlka ama yani sidinka yaa u haya suuqa the bulls or buyerska yaa u haya or the bears ama sellerska yaa u haya okay markaad kala ogaato buyers isna waxaad ogaanaysaa size-ka size hadda zadka ima shaqeynaya size ayaan ula jeeda sorry ma og wax iga dhacay daqiiq qofba zadka stack waa iga istaagay marka zad ayaa halka ula jeeda size and color waa inaad eegto candle-kii ma candle yar baa ma candle awood weyn baa waa inaad color-kana ma cagaar baa ma mataqaana ma guduud baa waa inaad real body-ga dee color of real body waa isla soco color-ka jirka candle cagaara candle guduuda size of tails saynta laftigeedu waxay ku tusaysaa saynta tails weak shadow inta hore soo dhigana umaleynaya saynta maseen dheer baa maseen caadi ah baa maseen yani maseenamahan oo kale baa dheerkan miyaa mise waa seen caadi oo kaa dhalkutaa okay haddee macnaha marka intaas qoro haddaba markaad candleka aragno hadda waan isku dayanayaa practice ahaan baa idinku tusaya suuqan gelaynaa waxaan leenahay yaa controlka hayo ma buliska baa haddee buliska hayaanna kalarkooda ma cagaar baa seentooda ma dheer tahay size-kooda ma waaweyn waxsina isku tiimi okay let's go back to suuqan galno okay suuqan markaan saan u fiiriyo analyze gareeyo jihada uu hadda haysto waa down waaye hoos ayuu u dedeganaya level ayaa halkan noo ah wuu jabiyey ayaan filaya levelka waa muhiim mar walba inaan ku trade garanaya iska orod ma fiicno waa level xoog weyn ujeednaa halkaa wuu ka laabtay bisna halkaa markuu imaado wuu ka laabtay bisna halkaa wuu jiiray resistance ayuu dhigmay okay su-aasha isweydiinayna waxa waaye hadda yaa controlka hayo suuqani waxaa controlka hayo sellerska ayaa hayo colorkooda waa guduud haye wax seema ama leeyihiin may xilligan la joogo may hal seen bay leeyihiin seentan aan arkayno waa seen ah rejection tusaysa diidmo in suuqan la diidan yahay levelka inuu ka laabto waayo marka hadda waxaan rajaynayaa maadaama ay sellerska hayaan $1 $2 inaad trade gareeyo sababtoo ah waxaan aaminsanahay sellerska in suuqan hoos usii wadaan entry fiican waa inaad haysto ani maxaan ku trade gareeyaa hal candle ayaan ku trade gareeyaa daqiiqada 1 minute okay levelka waxaan hadda ogahay sellerska inaan aamini karo suuqa horta waa down trend haye trendkaygu waa down maamulka suuqana halkaa marka laga yimaado levelkaas level ayuu uu ka soo laqtay marka saa loo soo dego waxaan arkayaa in sellersku ay awood sameynaya okay hadda bal ilaa levelkana sugayaa ilaa levelka inta ka jabsanayo maalinta hore casharada hore waa idinku tuso somaa seenta laftigeeda awood ayay saadaalisaa okay seenta ilaa seenta inuu jabsado waa muhiim laakiin muu jabsan okay isfaan halkan resistance muu jabsan ya maxaa rabay ilaa seenta waa meesha ugu dambayso inuu jabso wuu ku xirmay asoo daciif ayuu ku xirmay okay marka suuqa weli awood midaan siina ma hayno isna biaska ayaa soo galay halkan maxay ku cadeynaysaa bias awood badan inay soo galaan halkan maxay cadeynaysaa sellers awood badan inay soo galaan controlka ciidan siiya ayaan la ahay laakiin waxaan rabaa chance ayaan gaadayaa ah labada dhinac midkii igu soo bataan inaan u galo okay waayo hadda suuqa kama soo horjeesan karaa ani ahaan waayo waa down trend anytime ayuu soo laaban karaa waa macnaheedu marka hadda waxaan rabaa levelkan inuu ii jiro inkastoo halkan ay bias joogaan halkan hadda bias ayaa kasoo galay mujid haddana rejection weli biaska ayaa awooda waxaan rabaa levelkan inuu ii jiro buy uma geli karo waayo halkan go-aday kasoo laabtay anytime ayuu isna soo laabanaya saas ayaa psychological rabaa maskaxda inaad ku tusto mararka qaar it's very risky IQ option it's very risky sometimes ayaa halka buy u gelisa waxaad candle hanu kugu soo
uu soo noqonayo inuu laabto u yiro waayo levelkan ayaa diidmo waxaad arkaysaa halkan buy ma u geli sell ma u geli karnaa ha laakiin boqor ayaa ka horeeya boqorkan kan ayaa ka boqorsan anytime ayuu jari karaa laakiin haddaad waxyaabaha ka hesho rejection diidmo iyo tabar la'aan aad ka candleka awoodda badan waad u gelaysaa candleka hadduu awood ku xirmo levelkaas ayuu suuqa xushmeyn karaa kan wuu ku boodi karaa levelada sidaas ayay ku xushmeynaysaa waay okay $2 ayaan place gareynay tradekeena sababtaan ku place gareynay waxa waaye waxaan gartay levelka adaaya inuu kasoo laabto suuqu okay kan waa levelku kasoo laabtana levelki waxaan ka aragnaa in uu mar labaad markuu aaday rejection diidmo inaan arko marka waxaan qiimeynayaa halkan candle kuma qiimeyn karo suuqiyo hoos ah kuma qiimeyn karo yacni kuma qiimeyn karo inuu suuqani noqonayo sell buy uu aadayo okay kuma qiimeyn karo candlekan guud waa inuu intrigeena oo meel fiican haddaan idin sheego waa inuu ATM ama uu noqdo OTM labadaas ka kala jirto waa ana halkan dal baa trade garanayna bogti halkan kan dal waa guusheena halkan kan dal waa guuldaradan marka waa inaad aqoontaada ku dhameystiranta okay we win okay candleka hadda waxaan aragnaa in la okay level weli waxaan arkaynaa bias inay awood isticmaalaan laakiin waa laga awood badan yahay waa levelka hadduu mar jabay ma jiro soo noqosho ma jirto waa siduu u jabay marka waxaan rabnaa hadda yaa marka kalsoonideena siinayna waxaan siinaynaa sellerska laakiin ma siin karno sababta ay nisho biaska day halkan way imaadeen way noqdeen sanadii ay marka khatar cadiin waaye inay bisna soo galaan waayo waa dhowrtus halkan waan imaanaynaa marka waa iska ilaalinaysaan si ay kugu soo laabo marka waa inaan xaqiijino candleka waa inuu awood noo noqdo candleka labaadna waa inuu awood noqdo markaas ayaan gelaynaa sell u gelaynaa laakiin inta kadib waayo sell biaski hadaa halkan yimid haddana halkan soo riixayo waa imaan karaan candleka waa inuu awood ku xirmo candleka kalena waa in ugudin candlekaas waa inuu xoogaa guud ku xirmo asaga okay kan hadda rejection ma ka dareemayo wax bias laakiin hadaa markuu life ku socdo rejection ka dareemayo okay diidmo ayaa ka dareemayo okay hadda candleka waxa rabaa guud inuu igu markuu guud igu xirmo sell ayaan u galaa kalsoonideeda waxaan siinayaa sellers hadaba dad labo saddex labo candle keliya ku jiro bias inta kale marka awoodda hadda sellers ayaa laakiin weli kalsooni baan rabaa inaan ku trade gareeyo anuu og candlada guduudka tiri isku darta candle addition development beeban baranana 10keena labaad marka isku dardaro waxa iga soo baxaya kan candle awood badan kan lagu sidira candle awood badan kan lagu sidira labadan waa daciif laakiin suuqa habka uu socda ayaa ah markuu level gaaro inuu awood soo ma dhahay hadda day aqoontu waa inii sheegaan oo hadda day aday halkan imaadan soo ma dhihin waa dowlatus waa imaanayna waa haddaan aqoonta lahayn wax waaye down ba u sii galay xalay candle awood weyn waa sell suuq waa dhan bul halkan doonta ka ugu waa laga badiyay maxaa marka aniga qorshe ugu jiro wax igu jiro ma jirto marka aqoonta saas inay caawinaysa walaalayaal aqoontu waa muhiim inaad leedahay suuqan iyo aqoonta haddaad yeelato boqor baa noqonaysa aqoontana waa inaad barato suuqan levelka uu ka laabanayo suuqa levelka uu jabsanayo shuruudo ayaa jira insha allah shuruudahaas kulli waa inaad buuxin okay hadda $2 ayaan trade gareynaa levelkan waa ku kalsoonaa waa level awood badan marka halkan level buu hadda jaan noqday waayo bias ayaa kasoo galay meesha bias kasoo galaan waa level support ayay noqonaa okay marka levelkan marka waxaan ka rabaa daciifnimo inuu muujiyo in laga awood badan yahay inuu muujiyaan okay dabaal waa inuu iska dhigo marka kadib ayaan usoo gelayaa buy ayaan usoo gelayaa okay waa levelkan ilaa iyo halkan waa inuu iimaan daciifnimo uu muujiyo waa ilaa iyo meesha adaaya dhahin waa imaanaynaa waay okay meesha markii imaan waa inaan ka dareemo daciifnimo kadib ayaan aaminayaa waxa waaye inaan u galo sell laakiin haddaa awood ka dareemo ma gelahay
daciifnimada waxaa laga wadaa yani inaan ka dareemo rejection diidmo inaan ka dareemo isla socon walaalahay okay dadka qaar way iska galayaan no ha gelin inkastoo xataa uu support level yahay uu biaska ayaa soo geli karo awood ku jebin karo inkastoo support level yahay okay waa diidmo inaan ka aragna levelka annaga halkan dhalaa trade gareena moogta halka candle marka khasaaro iyo faa'iido labadaba waa okay waa hayaa soo ma diidmo waa hayaa waa in marka uu daciifnimo ku xirmo weli okay down u galaya okay waxa idin sheegay hadda waxa waaye adiga waxaad trade garanaysaa hal waxaad trade garanaysaa waa daqiiqado kooban marka guushaadu waa in mar walba ay tahay guul ah ku xadidan limit okay waa inaad ka faa'iidaysan karto chanceda one chance one goal yani inaad ka dhigato halkaa kaan hal daqiiqo ii soconaya tradekeygana waa hal daqiiqo sug hal daqiiqo hal daqiiqo hal daqiiqo inkastoo sikimada ay macaan inaan ka dhigno dhib male candlekan waa la soo diiday hadaa halkan yaa joogay sellers ayaa soo diiday haddana yaa jooga sellers ayaa halkaa jooga waa la soo celinaya awood buu isku dayayaa biasku isku soo dayayaan laakiin waa la soo celinaya dhacdo waa inuu soo laabto candle uu guduud ama uu daciif okay labadan okay dhib male waa la isgareynay levelkii buu hadda taagan yahay meeshu kasoo laaban lahaa waa okay ma degdegayno waayo hadaa waxaan hadaa meesha seenta ugu dambeyso mar walba waa inaad sugataa hadduu meeshaa jabiyo that means biaska ayaa awood ma degdegayno suuqa qiimehe okay waa level xoog weyn levelka waxaan walahi ilaahay haddaa hal mar khalad gasho labaad midkiisa haddaa aqoonta leedahay you will be good person okay 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 markan wali waa cool level xoogga haddaa uga soo galan sellers okay walka aada xataa u soo laabana okay kuma degdegaysid waayo waa candle walbo xoog weyn waxaan haddaa wax ka dambeeya candle retracement okay buy aanu galaa qofkii aqoon la waa fahmaya waxaan buy ugu galay aan sugno result jawaabtaas weyn okay bas ayaan idin sheegaya inkastoo halkan ma level u yahay laakiin u badanta inuu jabsanayo halkan waa level marka laba level isku dhow yihiin iska ilaali inaad kala trade gareyn halkan markuu level ku yahay halkan level hoosta anytime ayuu hoos usoo laabanaya so ma jirtaan waa la soo celinaya waa level laakiin intrigan wuu fiican yahay good entry point waan ka galay inkastoo aan rabay halkan markuu inaad trade gareeyo laakiin we have a good entry point okay sababta u gala waxa walaalay halkan level waaye maadaama level tahay wuu jabiyey candlekan awood buu ku jabiyey markuu soo laabtay ayaan chance ku helay oo aan tradekeyga galay khasaarahaygana waa kasoo kabtay $2 ayaan khasaarnay 29 baa weliba noo saaran okay and 26 baa noo saaran annaga faa'iido wada laakiin muhiimadda waxa waaye markaad khalad gasho in khaladkii aad gashay aad taqaan levelada inaad iska ilaalin taqaan habkaas un baa la rabaa inaad trade garayso ma ogta annaga $10 baa ilaa hadda haysan weli faa'iidaha qabno 2.4 ayaan nagu jirto marka habkaasaa la rabaa inaad u trade garayn karto maaha isku orod maaha hadaa halkan waa uu lose garayna candlekan ayaa xoogaa u mooday rejection laakiin muu ahayn diidmana wuu ahaa laakiin mana xisaabin marka kan aan arkay awoodiis laakiin waan ilaaw inaan isku daro 1 2 3 saddexdan kan marka isku daro kan camal u noqonaa marka awood waa siman tahay inama kala awood badan marka you have to make story sheeko waa in candle ka sameyn kartid maaha kaliya inaad ka halka candle maaha waa 3 candle 4 candle 5 candle inaad isku qaban marka kana inda israacaad xasdaa ka awood waay xitaa halkan bias ka anoo adaa inay halka inay ka soo galayeen waa bisna ilaa sanaad khalad baan galay khaladka aan galay ma sir mar labaad gelin ya
marka muqaal qalad gelin baan dhahay markuu candleka halka ku gaaro levelka bum uu galbaas okay habkaas ayaa la rabaa in aad u trade garayso trade-kan waa u qaadatiin muhiim marka badiska ayaa badinaa adigu khasaare mar walba ma qabaysid xataa waad khasaaraysa laakiin haddaad khasaarto kabasho ayaa leedahay rajo ayaa leedahay waxa ay kaga soo kaban karto maadaama aqoonta ilaahay ku siiyey may fahan hadda marka kaandhaladan aan fiirno 1 2 3 4 5 6 7 halkan kaandhal ma bedeli karaa ma bedeli karo hal mid buu ku bedeli karaa adii sheego halkan mid uu ku bedeli karo wax waaye kaandhalkan waa inuu buy noqdo buy waa inuu aado hal mid buu ku bedeli karaa adii sheego halkan mid uu ku bedeli karo waxa waaye okay صح صح اوكي انا ليفل وبعد حمد بو كبدل كرا halkan mid uu ku bedeli karo wax waaye suuqa wuxuu yahay suuq yani ton trend halkan mid waa laga yaabaa in salesku ay daneeyaan inay usoo galaan laakiin marka la fiiriyo hadda sentiment psychology ahaan maskaxiyan adba maskaxda tuuji yaa badan 1 2 3 4 5 6 7 candle iyo hal candle guud yaa awood macna keenaysa laakiin mararka qaar baa idin sheegaya idan hal candle tirin karin suuqa hadda waa down trend lugta yare gaabani markii candle oo guduud uu soo ingalaas gareeyo macnaheedu waxa waaye suuqan hoos buu sii aadaya halkaas uu ku bedeli kartaa waayo candlekan iyo candlekan isku awood bay noqdaan ma rabin inay soo awood noqdaan haddii xataa xoogaa daciif aan la buy ayaan usii geli lahaa candlekan waxaan ka dareemayaa awood inuu leeyahay waxaan aqaanaa candleka siduu usoo furmaayo candleka siduu noqonayo soo maa candlekan kalena guduud waa inuu noqdo kanna waa inuu guduud noqdo xoogaa lugti ayaa gabaabsi ah waaye waxaa bilaabanaya sell inuu suuqan uu usii socdo okay haday fahantaan marka kuma degdegaayo waayo waxa iga hiilin kara waxa waaye trendka anigana trendka waa saaxiibkay waa inaan trendka la socdo hataa levelkan waa level waa support level oo adaayo xoog bay uga soo galaan levelkan badana waa inaad barataan waa support level oo adaayo xoog ayay uga soo galaan hatta candlekan hadduu awood kan uu awood u sheegto kan kala baa laakiin haddii isku awood yeeshaan weli ma aamini karo waayo kan haddaa ku bixiso kan iyo kan isku bixiso weli dhac waa ciyaarta suuquna waa down trend marka waa inaad ka fiirsato mujid inay isdiidayaan marka adiga haddaa ciyaarta aqoon halkan iska gasho halkanna waa isdhaada baay baa ku macaashisa sino uu seel kugu noqdo greenland candleka aniga course waxaan soo bartay candle mathematics waa xisaab waa isku bixinaysaa marka kan iyo kan isku bixiso isku awood ba kan iyo kanna isku bixiso isku awood suuqa weli isku awood ba marka hadda candleka waxaan rajaynayaa inuu halkan ii jabiyo si awoodda aan u siino sales ama candleka waxaan rajaynayaa inuu halkaa uu ku xirmo si awoodda u siino bias kadib ayaan buy iyo sell kan ku geli lahayn ayaan go'aaminaynaa who is in control marka ayaan go'aaminaysaa kin controlka haya ayaa saaxiibka kaas ayaa raacaysa okay waa isfahanna u malaynaa ay hadda buy u geli lahayd candleka wuxuu kuu noqon lahaa waa lose garaynaysaa markaa ku degdegin candleka halkaa inuu ii jabiyaa rabaa okay jabin rabaa markuu jabiyo waxaan rabaa inaan trade gareeyo down u trade gareeyo weli levelka ilaa iyo halkaas intaas ayaan dhigaa ilaa iyo halkaa jabiyo haddaan ka arko rejection waxaan dareemayaa biaska inay weli awood leeyihiin that means biaska weli way daneynaya halkaa inay buy garaystaan okay candleka wuxuu ku xirmayaa ama guduud daciif ama green daciif waana level weli waxaan arkaynaa de biaska daa halkan awood bay uga soo galaan halkan awood that means suuqan buy ayuu sii xigsanaa entry fiican ayaa raadsanaysaa ogow hal candle inaad trade garaynayso ku fikir hal candle ay iga raad waxaan marka halkaa igu soo laabtay meesha ka furmaa inaan ku diro laakiin dhib male and we gonna win okay niyaddaa u sheeg inaan win garanaysa ilaa levelkan suuqan soconaya sidaan jeclahay waa inuu ii yeelo inkastoo entry pointiga igala hormaray oo iga dheeray laakiin ilaa halkan uu soconaya okay
ilaa iyo halkan waa inuu ii socdo ilaa iyo halkan waa inuu socdo waa in green ku xirmo okay sellers waa jiraan waayo sellersku ayaguna halkan dagaal ayaa ka socda daayo barbardhac buu ahaa dagaal ayaa halka ka socda sellersku way dareynaya wuxuu leeyahay annagana waa rabnaa inaan soo galno suuqa laakiin buy ayuu ku xirmayaa candleka waayo gap up ayaa dhacay hadduu candlekan halkan ka boodo buy ayuu ku xirmaya ilaa levelkan wuu soconayaa sellers level ka boqorsan ayaa jira hadduu jiirana ilaa levelkaas ayuu soconayaa waa ujeeda hadduu jiiro waa hadduu levelkan diidmo uu xushmeeyana dee diidmo weyn aad ka aragto sell ayaad isu gelaysa qofkaas ayaad candlada uga macaashaysan weli diidmadan diidmo ku filan maaha laakiin inta ayuu soo noqonayaa telegram levelka uu ka boqorsan uu suuqa xushmeyn karo ma arka okay qofkaas ayaad candlada ku dar very simple soma wax fudud soma halkaa daa support level ayuu diidmo weyn ayaan aragnay buygan halkan ayaa u galnay waa kaga macaashnay okay weli faa'iido annaga wadana 3.9 ayaa wadana lose dhan ma qabno $10 ayaan la nimi $4 ku dhawaad ayaan faa'iido qabnay okay so ma jid levelkana ka boqorsan level ka boqorsan ayuu suuqa xushmeynaya ay la socotaan hadda levelkan ayaan aaminsanahay inuu markuu gaaro ama inuu ii jiro ama inuu iiga soo laabto okay labadan okay wuu ka soo laabtay rejection ayaan arkaa maan gelin trade-ka maan qaadan trade awood badan waaye laakiin waxaan ogahay halkan level inuu yahay sign leftigiisa ayaan ogahay waayo adaayo levelkan ayuu jiro waa adaayo levelkii yaraa uu ka soo laabtay mii fahamtay marka uu jiray wuxuu noqonayaa hadduu jiro support ayuu u dhaqmaya okay marka waxay u dhowdaa bias awood badan inay soo galeen levelka in la jibinayo u dhowdaa suuqana uu uptrend sii xigsan okay taas marka ku qiimaysa level iska ilaali level uu ku dooganaya uu ku dilaya level hadadan aqoon u lahayn iska ilaalin mar walba level waa inaad iska ilaaliso waxaa sakriya ugu soo orod noo suuqa hadda halkan waa level asaga waa level xoog weyn iska daad levelka aqoon suuqa uu ku dooganaya muhiimku waa level waxa kale candleka adoo yaqaan markaad hoosata candleka hadduu imaan karo ayaan u gelaya sheer hadduu ii soo laabto iga tag dhibna halkaad kugu filan hadda ama levelka inuu jiiro ama inuu ka soo laabto uu jiiro okay hadda markaad fikirto controlka yahay controlka waxaa buying pressure aad u weyn oo bias ayaa controlka using control bias laakiin level ayaa halkaa haddii levelka sellers ay soo galaan sell ayaan u gelaynaa 100% sure waayo daayaha sellers ayaa halkaa kasoo galay waa awood badan marka hadda sellerska ayaan ka macaashaynaa haddii aan aragno daciifnimo aan ka aragno bias hadday jiraan awood ku xidhmaan levelkana bias ayaa awood siina okay ayaan u galay sababta isweydiinaysaan waxa waaye candlekan candle daciif maaha waa candle strong daciifnimo kama arkan aniga levelkii asoo joogo ayuu geesnimo wuxuu yeeshay inuu levelkii marka candlekan wuxuu noqonaa ka ku xiga bullish ayuu noqonaa maadaama marka la fiiriyo kan iyo kan iyo kan uu isku daran awood bullish ay ahaanayaan okay intrigena no meel intrigena waa good entry point inkastoo weliba dagaal uu meesha ka socdo okay weli bias ma arko soo galaya suuqa okay إنسان كمثل بايس إن الضعيف يعني قرؤ واسع أوجا
okay big one very good very good sababta aan u galan aan idin sheego sabab ayaa ka dambaysa inkastoo level uu halkan ahaa haddana waxaan dareemay haddana waxaan idhaa halkan waa no level suma sellers ayaa halka weli sellersku waxaan dareemayaa ilaa halka inay gaareen lowga marka that means anytime ayuu hoos u qaadan usii degdegaya lowgan rejection waa macno okay waxaan idhaa halkan level waa suma anaa xoogaa waa ilduufay sababtoo ah halkan waxaan arkaa daaya inay sellers ka soo galaan waa levelkan anyway waa levelkan isla levelkan bisna waxaan arkay waa levelkan buy waardiisa unit waa daciifan sellers ayaa soo gala bisna levelkii waxaa la gaaray asoo rejection leh ayuu ku xirmay taadmees hadduu levelkii asoo rejection leh ku xirmo retracement candle anytime uu imaanayo that means ayaa buy ayaa halkaa uu ku saarnay dhib male markii waan dareemay suuqa inuu awood sii yeelanayo anytime degdegaya marka saas ayaan sell ugu galay waayo candlekan engulfing waa awood ayuu u yeeshay inuu bias kala tartamo marka that means buy sellka ayaa awood yeelanaya controlka ayaa gacanta ku dhigaa sida ujeedna hadda ilaa hadda ayaa control gacanta that means marka faa'iido anaga 5.6 qabna maalinta haddaad 5.6 samayso حتى OTC marketka aad kaga trade garayso OTC marketka حتى aad kaga trade garayso ma garanaysaa aad kaga trade garayso OTC marketka xirfadda orod bay ugu shaqeynaysaa OTC marketka la trade garayga iska daaya OTC marketka waxaad u trade gareen aqoonti baadan lahayn dadka aqoonta leh OTC market way trade garayaan wax dhibin kuma jiro OTC market okay hadda $5 haddaad maalinta samayn karto bilaabo maxaa orto tartiib aqoontina aad tartiib u yeelanayso aqoontina aad tartiib $5 lagu dhufto 30 beri waa $150 akoonkaaga muddo bil ah waa ku korinaysaa $150 faa'iido ayaa samaynaysaa muddo bil ah ya muddo bil ah kontonka iska jaafa iska cun haddaad boqolka laakiin akoonka u deyso si aad maalintii u trade gareyn karto hadda $1 $2 $5 iyo trade gareynaysaa soo ma saa u trade garayso adhoodi lacago waaweyn oo $5 iyo $10 iyo yani maalintaas bisna waxa samayn kartaa maalinta waxa samayn kartaa iska $10 baa samayn kartaa $10 30 lagu dhiftay waa $300 that's power of compounding awoodda compound lacagta markaad ilaashato ya $300 baa samaynaysaa bish okay $350 la bax hadda rabto adigu markasta khidmad yar oo $50 maadaama ku shaqeynaa awood lacagta adaa lama rabo laakiin isna maalinta ka soo qaadbisna $15 baad samays adoo xirfadda ku cilmiga maalinta bishii 30 bari ku dhuf OTC market xataa dusha ka maraysa $450 la $400 akoon ku daa isna markasta akoonkaaga weynaado dee awood baad ku trade galinaysaa lacagtaada ilaa ku xisaabtamaysaa laakiin aqli maadan lahayn adoo $10 ku bilaab inaad rabto maalinta inaad $8 trade galayso ayuu mad brother marka taan waa intuu saay nidaam ayaa jiro psychology ahaan maskax ahaan lacag lagu sameeyo ma lacag wax iskaga soo degaysa okay khidmad baa laga baahan yahay aqoon baa laga baahan yahay khasaaro waa khasaaraysaa laakiin faa'iidadaada markasta adaa faa'iidaya markasta sidaa rabto kuma noqonayso laakiin markasta adaa faa'iidaya maxaa haddaad markasta faa'iido qabtooda khasaareen waa luus garaynaysa mararka qaar maskaxdiina bara suuqan usoo diyaar garow inaad khasaarto ya لكن هو سود يقولون على العقل لحقتها مركز وانا سوي 20 اقونتين وانا اوكي هلكن waa level waa support level laakiin kana ka boqorsan halkan nooge waayo kan ayaa laga sii boqorsan yahay kan ayaa ka boqorsan okay waa dhacda kan inuu ku noqdo aduu kan xushmeeyo oo aan aragin diidmo iyo mataqaanaa inuu ka baqaayo kan qorsheyso aduu inaad taageerso anytime kaas oo jiiri karaa intuu xushmeeyo warnagad uu leeyahay kaas aduu ka soo laabanaayo kan aduu xushmeeyo aduu jirmo xushmeeyo confirmation ayaa sugaysaa so it's very simple waxan kan ayuu xushmeeyaa level waa kan ilaa halka okay bias ayaa soo baxay
sababtu maxay tahay kandhiladan awoodda badan marka storage ka sameeyo bias waa daciif iga biaska weli ma aamin karo ilaa ay lafalkaa ii jibiyaan kandilka inuu awood gudo oo lafalkaa jibiyo markaas ayaa biaska aamin laakiin inta kale seelaska ayaa awood leh marka ma gelaysid waayo kan waa daciif kan markii lagu daro awood waayo kan ma mateli karo laakiin haddana kan sheeka ayaa iiga soo baxaysa waxay tahay nimanka awoodda badan sidee kan yarka ugu celin karaa waayo level ayaa halka ah baa iiga soo baxaysa marka level ayaa halka ah marka levelkaas si aan ugu sii kalsoonaado waa inaan arko diidmo badan ilaa iyo halkan waa in seelaska la diido kadib aan baa u geliyo okay sheekada saas waa loola jeedaa waa inaa controlka dadka ay ogaato waa in sheekada kandilada badan isku darto may fahantunaa weli waxa arkaa levelka inuu ku xidhmo kandilka that means seelaskuna waa daciif barbardhac waa halka anytime bay bias kusoo geli karaan laakiin weli ma aaminsani labada mid bay u jabaysaa ama in bias soo galo ama in seelasku ay sii wataan hooshooda may fahan marka labada gees dhinac markay uga jabayso ay iska gelin ya kan sheeka kaga soo baxaysa biaskii waan rajeynaa inay soo galaan babisna la soo celiyo waxa loo bedelay seel isna ka sheeka ay iga soo baxaysa levelka aan rabay inuu awood yeesho uu jiro maxaa daciifiyay that means bias weli waa isku dhagan yahay waxa sugaysaa labada gees midba inay baashu u dhacaysa ay sugaysaa wanta waa taa lagu sheegay ee dalaq looma hubiyo sheer ayaan rajeynayaa allaha casharka noogu ekaado mar walba practice-kaas ayaan u practice gareynaa mar walba saas ayaan mataqaanaa u tirar gareynaa anugu mararka qaar $10 ayaan ka bilaabaa 30 ayaa gaarsiiya 20 ayaa gaarsiiya practice waa muhiim inaad barato kadib lacagta waan lose gareeyaa $10 bisna waayo maskaxdaada waxay la qabsanaysaa akhlaaqda trade-ka laakiin khamaarka haddii akoonka aad 3 milyan aad gaarsiinaysa 1 milyan ama 900 ama 300 aad marka halkan la imaado riilka la imaado xiniyaa inta lagaa siiyo badhida lagaa keenayo duuf laa bilaa kila marka akoonka riilka ku bilaaba ragga aan akoonka riilka u leeyahay wax kula tanaa ku bilaaba riilka ha trade garayaan awood iyo mataqaanaa xamaasadna ha uu marka halkan ma trade garayn lahayd ma trade garayna waayo halkan waa level halkan waa level ani halkan dollar ku fikra marka halkan waa level soo jeedaa levelkan waxa soo jibiyay sales marka halkan markuu yimaado ma trade garayna inkastoo salesku awood leeyahay misna biaskana levelkoodu uu yahay intaan ay soo caabinaa ninka waa ninkeeniya gargaarka boom uu kugu jabi karo marka ha sameynin u kaadi halkaa markuu jaro ama halkaa markii toos loogu soo celiyo halkaa jaro trade-kaaga please okay khayr aan rajeynayaa billahi tawfiiq assalaamu calaykum warahmatullahi sorry commentiyada ha lagu reebo commentiyada muhiim waaye maanta aan waa u jeedaan loof baa u saaraa dadka xataa markii fikradooda maasha allah dhalinyaro badan waxay kaga hadleen in ay indicatorada indhasarcaadka ah ay ku wareersanaayeen laakiin price actionkayga sida u jeed inay si fiican u arkaan ay wax badan iskaga bedeleen maasha allah soo dhaweynayaa sidaasaa la rabaa qof walba inuu ka hadlo fikradiisa fikradaada your opinion is very important to me okay fikradaada igala hadal insha allah khayr badan baan idin rajeynayaa dhammaantiin aan idin jeclahay assalaamu calaykum warahmatullahi taala